Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waa xanta wararka ku biiro ka mid noqda wadaasha ku xiran halkan. Adigoo la wadaagaya saaxiibadaada warar warbixino iyo dhacdooyin aanu falanqeyn faaqidaad ku sameeyno. Waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aanu ku falanqeyn doona hadduu alweyn raalow ka noqdo daawade. Waxa ka mid noqon doona aanu barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa. Xildhibaan Sambalolshe oo sheegay in dagaalka aysan sii wadi kareenin beesha Xawaadle gobolka Hiiraan xiisada ka taagan iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab haddii aysan helin garab iyo gaashaan ay u baahan yihiin beelaha kale. Waxaan idin soo gudbin doonaa qeeladaan xooggan oo ka soo yeertay xildhibaan Sambalolshe aanu barnaamijkan idinku soo gudbin doona hadduu alweyne raali uu ka noqdo. sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aanu ku falanqeyn doona hadduu alweyn raali uu ka noqdo. waxa ka mid noqon doona waanu barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo ku wajahan Cadalle. waxaan idin soo gudbin doonaa socdaalka madaxweynaha ee Cadalle iyo qorshaha waxa uu daaran yahay oo barnaamijkan ku falanqeyn doono akuna faqidi doona hadduu alweyn raali uu ka noqdo. sidoo kale qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan barnaamijkan aanu ku falanqeyn doonaa kuna faqidi doonaa hadduu alweyn raali uu ka noqdo. ee soo dhawaada daawadayaal ku biira ka mid noqda daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska inoogu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibadaada warar warbixino iyo dhacdooyin aanu falanqeyn faaqidaad ku sameeyno daawadayaasha inagu xiranow. aynu ku bilowno xildhibaan Sambalolshe ayaa yiri ma sii wadi karina dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab haddii aan la helin dhowr tallaabo. xildhibaan Cabdilaahi Sambalolshe oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa fariin culus u diray maamulada iyo qabaa'ilada kale ee dalka isagoo ku baaqay in laga wada qayb qaato dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee beeshaasi sida goonida ay u wajahayso. Sambalolshe ayaa sheegay inay dareemayaan culayska in la isu fiirsaday dadka reer Hiiraan iyo Shabaab wuxuuna si cad u sheegay inaysan dagaalka sii wadi karin haddii aan lagala qayb galin. dhinaca kalena ay ku adag tahay inay joojiyaan dagaalka maadaama deegaano dhowr ah Shabaab lagala wareegay. walaalayaalow qolo gooni ah ayuu culays ku haystaa dagaalka kaligeedna ma sii wadi karno mana ka bixi karno haddii aysan beelaha kale nala qayb qaadan. wuxuu dhinaca kale sheegay waxa ay haatan sida degdeg ah uga baahan yihiin inay tahay hub rasaas askar dagaalanta isagoo sheegay in haddii aan guud ahaan Shabaab dalka meelaha ay ka joogaan lagula markaasi dagaalami karin awoodoo dhan la isugu geeyo goobaha uu haatan dagaalka ka socdo Hiiraan. isagoo dareemay sidoo kale sheegay culayska ururkaasi iminku uu soo saarayo dadka reer Hiiraan. si kastaba xildhibaan Sambalolshe laba jeer hore u noqday taliyaha Niza ayaa dhawaan isaga iyo wasiirka gaashaandhigga dalka waxay tageen furimaha hore ee dagaalka Hiiraan isagoo dhiirigelin u sameeyay ciidanka dawladda iyo kooxda macawisleyda ee dagaalka wada. shalay ugu dambeysay dayuuradaha gargaarka ayuu markaasi qayb ka ahaa isaga oo hormuud u ahaa xubnaha markaasi gargaarkaasi fidinayay. si kasta oo xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqyada socda ayaa ah kuwa markaasi xooggan iyada oo ay soo tarayaan xaaladaha gobolka Hiiraan uu wajahayo. Soomaan ayay la wareegeen kol sii horeysay oo maanta ah iyagoo gacanta ku dhigay deegaankaasi. Sambalolshe ayaa baaq guud u jeediyay beesha Mudullood sidoo kale waxa uu u jeediyay baaq beelaha Murusade Abargidir Digil iyo Mirifle isaga oo si guud ugu nuxnuxsaday beelweynta Hawiye in markaasi aan loo soo eegan xaaladda iminka taagan isaga oo markaasi dalbaday in dagaalka Hiiraan uu markaasi yahay culays gooni ah oo ay beeshaasi wajahayso isaga oo sheegay in xaaladdu ay markaasi tahay mid u baahan in dhinacyo badan laga saaro culays xubnahan haddii kalena ay dhici karto in markaasi xaaladdu ay sii adkaato. sida uu hadalka ku yiri xildhibaan Sambalolshe oo wareysi uu bixiyay kaga hadlay arrimahaasi. si kasta oo xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqyadan ayaa ah kuwa markaasi ka taagan gobolka Hiiraan iyada oo ay sii kordheen xaaladaha xilli saddex qarax oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
kul sii horeysay oo shalayto ahayd, taasi oo iyadu markaasi ka dhalatay waxyeelada khasaarada dhimashada dadyo badan oo iyagu markaasi ku sugnaa arada Lamagalayo oo ahayd goobta uu ka dhacay weerarada xoogganaa ee ururkaasi Al-Shabaab ay qaadeen kul sii horeysay oo shalayto ahayd. Si kasta oo xaaladda noqoto, Sambalolshe waxa uu markaasi sheegay in iminka ay u baahan yihiin oo qura hub iyo sidoo kale ciidan. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay markaasi muhiim tahay in haddii xubnaha kale ama beelaha kale aysan qaadaynin wax dirir ah ama dagaal ah, inay markaasi iyagu dirirtooda u soo weeciyaan dhanka Hiiraan oo ay dhinacaasi gulufka iyo gaashaanku markaasi qayb kaga noqdaan. Al-Shabaab ayaa waxay markaasi bilowday olole ay uga jawaabayso kacdoonka shacabka. Ciidanka ammaanka Beledweyne ayaa xalay qabtay nin la tuunsan yahay inuu qorsheynayay ismiidaamin kadib 3 garax gaari oo shalayto ka dhacday xarunta gobolka Hiiraan. Muuqaal ku faafay barta bulshada ayaa muujinaya shakhsigan oo ku hareeraysan yihiin askarta. Weli ma jirto cid markaasi faahfaahisay. Dadka ku dhaawacmay weeraradii shalayto Beledweyne ayaa loo keenay Muqdisho si ay u helaan baxnaano caafimaad, maadaama isbitaalka weyn ee xarunta gobolka Hiiraan uu horay ugu burburay qaraxyo hore loola eegtay. Mas'uuliyiin dowladeed ayaa ku soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde. Bandow dhaqan galay fiidnimadii xalay ayaa lagu rogay Beledweyne kadib qaraxyadii ka dhacay xarunta gobolka Hiiraan. Saraakiisha ammaanka oo tallaabadan la xiriiriyay ka hortagga falal kale oo argagixiso ayaa sheegay in isu socodku magaaladu uu dib u bilaaban doono. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan ayaa yiri bartilmaameedka qaraxyada Beledweyne aniga ayuu ahaa, laakiin waa fal argagixiso oo ka dhacay meelo kale iyo guud ahaan adduunka. Al-Shabaab iyo annagana waa noo markaasi qooshan tahay. Howlgalka military Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyn ay ka geysteen nawaaxiga magaalada Jilib ay ku qarijiyeen hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab. Ma shaacin magaciisa, balse waxay xuseen inuusan jirin khasaare shacab. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay warisay in howlgal qorsheysan lagu dilay waa kul sii horeysay Cabdilaahi Naadir, madaxii dacwadda Al-Shabaab, sidoo kalena ahaa dhaxal sugaha ururkaasi. Al-Shabaab ayaa u muuqata inay bilowday olole ay uga jawaabayso kacdoonka shacabka ee ku curtay gobolka Hiiraan kuna sii fiday qaybo ka mid ah dalka, iyadoo dowladda federaalka ay ku tilmaamtay inuu yahay dhamaadka argagixisada ka gadaal weeraro bahalnimo ahaa oo ka dhacay gobolkaasi Hiiraan oo lagu bartilmaameedsaday dadyo yar rayid ahaa iyo mas'uuliyiin. Abaabulkii ugu dambeeyay ka socda gobolkaasi Shabeellada Dhexe, iyadoo beesha madaxweynuhu ay ku beertay duulaanka. Xubno ayaa u dhaqaaqay dhinacaasi iyaga oo hardankaasi qayb ka noqday. Baabuur xooggan iyo cutubyo ciidan ah ayaa la wariyay dhinacaasi u dhaqaaqeen. Walow dhaqaaqaasi madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir uu ku sheegay mid siyaasadeysan. Qoraal dheer uu markaasi ku qoray boggiisa Facebook-ga oo aanu qayb markaasi ka soo qaadan doono uu kaga hadlay socdaalkaasi ayuu yiri macadowgii ayaa la aaday mise cadalle. Asbuuc la soo dhaafay waxaa soo baxay xog sheegaysa in ciidanka Niza loo diray Balcad. Waajibaadka ciidankaasi la siiyay wuxuu ahaa inay furaan wadada Balcad iyo Jowhar, sidoo kalena ay Al-Shabaab ka saaraan deegaanka Xawaadley oo Raagaceelle iyo Cadala saaran. Sabab aan weli la garan ayaa jimcihii ciidanka loogu diray Basra oo aan qorshahaba ku jirin. Waxaanu ku weynay sargaal qiimo weyn lahaa. Waxaa xigtay in la diray ciidan guutada madaxtooyada ka tirsan, sida dhawaan la arki doono. Intaasoo idil waxaa loo sameynayay maahan gurmad Hiiraan ee waa badqabka madaxweynaha oo Cadale u tagaya qorshe ka baxsan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaas oo ah in madaxweynuhu dhawaan dowladda u rari doono kuna shaqeyn doono degmada Cadale oo maalmaha soo socda laga bilaabayo garoon diyaaradeed oo rayid iyo military u kala qaybsan iyo madaxtooye labaad oo madaxweynuhu ku shaqo bilaabi doono. Maadaama mashruucan yahay mid ka baxsan dagaalka Shabaab, laba arrimood ayuu ku qotomaa: xaalad amniga madaxweynaha oo soo noqnoqotay iyo xogo la helay, taasoo ugu dambeyn gaartay heer agaasimo madaxtooyada loo magacaabay la hubsaday inuu ahaa sargaal sare oo Shabaab ah, iyo madaxweynaha oo nasiino ku filan inuu hore dhaqaatiirtiisu kula talisay. Qandaraaska dhismaha garoonka iyo madaxtooyada Cadale oo sababay tartan adag oo u dhexeeya ganacsato iyo xildhibaano macaash doon ah oo qaarkood tuuto military xirteen ay isku muujiyaan, walow fursad ahaan
ay markaasi ka roon tahay shirkadda walow fursad ahaan ay ka roon tahay shirkadda col oo ay shirkado ku yihiin kooxo dhalinyaro ah oo ka go'day Xaaji Abuukar Umar Cadaan iyo madaxweyne Guudlaabe oo madaxtooyada federaalka ku lamaanisay ganacsade reer Mzagawaya oo Imaaraadka laga soo masaafuriyay. Haddii aanu culays kale ku imaanin buuxinta qarashka dhismaha, waxaa lagu qanciyay rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo dhaqaalihii dhismaha wadooyinka Muqdisho u weecinaya dhanka Cadale, sida uu qoraal dheer ugu soo saaray ku yiri Cali Cabdi Wardheere Cali Yare, madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir.